Waan idin salamay. Waxaa laga yaabaa in muuqaalkayga inta badan aad isweydiisay ninkan ma Soomaaliya mise af Soomaaliga ku baran karaa. Haddaba muuqaalkan dhammayso. Mahadsanidin. waxaa laga yaabaa muuqaalkii hadda aad soo daawateen in muddo ah in aad isweydiinayseen habka loo sameeyo iyo ma ninka af Soomaaliga yaqaano ma afka Soomaaliga bartay iyo su'aalo noocaas oo kale ah. Si markaasi barnaamijkaasi aad kaaga dabageeyo waxaad imaanaysaa Chroma keyga ama sida barnaamijyadaas loo sameeyo si aad u barato waxaad imaanaysaa Chroma keyga ama Google-ka labadan waaye labadan ay calaamadiyay midkoodaad imaanaysaan. anigu waxaan isticmaalaa inta badan Chroma keyga. adigu Chroma keyga kusoo dhufo kadib qaybtan hoose waxaad ku qoranaysaa d/id studio ku qor. habkan ay ugu qoran tahay qaybta sare habkaas ugu qor. habkan jeeda qaybta sare ee ugu qoran tahay habkaas ugu qor. ka gadaal waxaad sameynaysaa searching sidaan ay soo baxayso. muuqaalkan waxaa la lahaa id ia waxaa laga wadaa artificial intelligence aa lahaa gacan ku sameyska caqliga leh markii la af Soomaaliyeey. marka website-kan kore aad ku dhufanaysaa studio d/id ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. ka gadaal sidaan ku soo baxayso. sidaan markay ku soo baxdo adigu maadaama markii ugu horeysay aad soo galaysid ay tahay waxa lagaaga baahan yahay inaad gmail-kaaga ku soo xirto oo sign up ama log in midkood aad soo sameyso si markaasi aad dhabtid kuugu noqdo. anaga hadda wuu ii soo furmay qaybtan sare aan taabanaa. waxaan kasii taabanaa qaybtan desktop-ta ah aan ka taabanaa. markaan sidaan sameeyo wuxuu ii naqanaa wuu ii balaaranaa saddexdan project ama saddexdan muuqaal meesha idinkaga muuqato anaa sameeyey. muuqaalkan hadda muuqaalkii aad horay ka soo daawateen waaye. cafwan baga taabtay aan ku soo laabto. marka si toos ah adigu maadaama markaad sidaan ay ku noqoto si toos ah wuxuu ku leeyahay gmail-kaaga soo log am soo sameey waxaasuu ku leeyahay qaybtan ay ku qoran tahay great video muuqaalka sameey uu ku leeyahay. qaybtan yar ee muuqaalka sameey uu ku leeyahay aad ku dhufanaysaa kadib sidaan ku soo baxayso. ka gadaal dadkan hoose meeshaan dadkan hoose halkan idinkaga muuqdo waa dadkii matalaada ku sameyn lahaa aad codka dul saaran lahayd. tusaale waxaa laga yaabaa inaad wax soo gudbiso aad jeceshahay ama dadka inaad wax barto aad jeceshahay laakiin aadan rabin in wejigaaga la barto. sidaas darteed waxaa isticmaalaysaa dadkan oo ah presenter waxaa la lahaa dadka adiga ku matalaya macnaha ku hadlayo dadkan isticmaalaysa. anigu hadda muuqaalkan ugu sareeyo ee yarkan doorna haddaan rabo qof kale haddaan doorto ku dhufanaa sidaan isku badbedelaa. marka ciddaa doontaa dooran kartaa laakiin anigu hadda yarkaan rabaa inuu ii hadlo maadaama yarkaan uu caan ka yahay inta badan. ka gadaal qaybtan yar oo ay ku qoran tahay waxaad ku qoraysaa waxa markaasi la rabo in qofka uu kula hadlo. tusaale oo kale waan idin salaamay saaxiibayaal oo kale iyo markaasi waxa aad rabto ayaad meesha ku sii qoraysaa oo rabtid in qofkan uu kula hadlo. markaad sidaas u qorto qoraalkaagii waxaa muhiim ah inaad iska fiiriso meeshaan ay ku qoran tahay meeshaan ujeeda meeshaan inaad iska fiirisaa la rabaa. meeshaan aan ku calaamadeeyo meeshaan inaad si fiican iskaga fiirisaa la rabaa. markaan ku leeyahay inaad si fiican iskaga fiiriso
meeshaan waxay u kala qaybsantaa laba qaybood. Qaybtan waa qaybta luqadda uu ku hadlayo qofka. Qaybtan kale ee ka hooseysana waa haddii aad rabto codkaaga cod naag in laga dhigo iyo haddaa rabto codkaaga cod qof markaasi rag ah ama dumar ah in laga dhiga ka kala dooranaysaa. Hadda waxaa noo saaran aan ku dhufto meeshaan language qoran aan ku dhufto. Waxaan u maleynaa tan inay USA tahay aan u maleynaa, maadaama calankooda meesha ka muuqdo. Hoosaan u wadeynaa anaga hoos ilaa xad waxaan wadeynaa kor aan wadeynaa ilaa aan ka aragno calanka Soomaaliya iyo maxaa la ii sheegay aan ka aragno waan wadeynaa. Luqadooyin badan ayaa ku jiro sida Isbaanishka, waxaa ku jiro sida maxaa la ii sheegay Swahili, wax badan ayaa ku jiro, Argentina ku jiro, wax walba ku jiro. Marka aniga qaybtan Soomaaliga ah, Soomaaliga inuu idin muuqdaan rajeynaa. waa kan cafwan waa kan marka waa kana aan ku dhufto Soomaali waa ku dhuftay. Qaybtaana waxaan ku deynaa already meeshan hadda ayaga ku qoray ubax iyo muuse ay ku qoreen. Muuse macnaha waxaa laga wadaa rag inuu ku hadlo laga wadaa. Muuse rag inuu ku hadlaa laga wadaa. Halka ubaxna meeshaan waxay ku qoreen muuse. aan mar kale imaado muuse iyo ubax labadaas kor ay kala qoreen. Marka haddii ubax aad doorato yacni waxaa rabtaa inuu qofka cod naag ah kugula hadlo. haddaa muuse doonatona waxaa rabtaa inuu kula hadlo cod markaasi nin rag ah. Ka gadaal markii aad intaan dhammayso, qaybtan sare ay ku qoran tahay generate video ay ku qoran tahay. Qaybtan sare oo generate video ay ku qoran tahay, qaybtaasaad ku dhufanaysaa. Marka qaybtaada ku dhufayso xogo yar procedure oo maraa muuqaalka. Procedure markoo mara qaybtan kale iyaduna generate ay ku qoran tahay. Qaybtaana ku dhufanaysaa sida muuqaalkaaga uu isku save gareeyo ama uu isku diyaariyo. wax yaroo warwareegana, wax yar markuu warwareegto intuu ku keena. Inta markuu keeno waa ka had is wareejinayo oo saddexda muuqaal kale muuqaalkan saddexda muuqaal kale sida muuqaalkan mashruuc kuwan ka horeeyay aan hore soo sameeyay waaye. Muuqaalkii hadda aan anaga noo wareeganahay waa kana wuu noo dhameystirmay. Waxaan rabnaa marka inuu noo save garoobo asagaan riixeena. Markaan riixno sidaanu naqanaa sidaan markuu noqdo saddexdaas dhibcood muuqaalkii aan riixnay ka dul muuqato. Saddexdaas dhibcood aan taabanaa wuxuu leeyahay dowlad ama sheergaray ama daleed. Anagu waxaan u baahanahay inuu Google noo soo galo galeriga dowladaan leenahay. Dowlad markaan dhahno wax yaroo halkaan ka wareegana waa ujeedaan. Ka gadaalna si toos ah oo u soo degaa. Waa ka hadda ii soo degtay oo si toos ah muuqaaladeedii aan ku dhufto. Open aan taabto. Aan daawano marka muxuu leeyahay. waan idin salaamay saaxiibayaal. waa ka qoraalka day aan meesha ku qoraynay ahayd waa idin salaamay saaxiibayaal ayuun ku hadlaa. asoo waliba waan idin salaamay saaxiibayaal. waa ka marka adigu qoraalka aad rabto iyo sida aad rabto inuu kugu dhawaaqo halkaas ku qoranaysaa. Waxaan idin rajeynaa inaad fahanteen programkani magaciisa waxaa la lahaa AI waxaa laga soo gaabay artificial intelligence. yacni artificial waxa gacmaha lagu sameeyo waaye gacmo ku sameyska aqliga.